A virus that originated in China has made its way to the United States. فيروس كورونا الجديد الذي قتل وأصاب المئات. A newly identified coronavirus that emerged in the city of Wuhan in fadlan ha ilmaamin subscribe sabta dad ku cusubta kanaalka kadib furo gambalaalka si aad uga mid noqoto daawadayaasha ugu horeeya. hal mar wuxuu adduunka dhammi ku warhelay curashada xanuun cusub oo ka halis badan cudurkii Ebola ee galaaftay nolosha kumanaan qof oo ku nool qaaradda Afrika. wuxuu ku bilaabmayaa qandho uu weheliyo qufac, wuxuuna ku idlaanayaa dhimasho kadis ah, wuxuu ku gudbaa qufaca iyo taabashada, wuxuuna u fidayaa si xad dhaaf ah. qofka uu ku dhacana nasiib darro heli maayo daawo. dalka China oo uu ka bilowday waxaa lagu soo rogay xaalad degdeg ah. gobolkii uu ka dilaacayna waxaa la geliyey go'doon iyadoo laga mamnuucay in la tago, sidoo kalena laga soo baxo. iyadoo sidaasi ay tahay, haddana ilaa hadda wuxuu marayaa dalkii 11aad ee uu ku fido muddo isbuucyo ah gudaheed, taasoo ka dhigtay dalal badan oo adduunka ah kuwa gagooyinkooda diyaaradaha ku xira qalab ka baara dadka imaanaya dalalkooda inay qabaan cudurkaasi. haddaba muxuu yahay cudurkan argagaxa geliyay adduunka oo idil? se maxay yihiin calaamadihiisu? cudurka ama fayraska corona ma ahan fayras ku cusub adduunka, balse wuxuu soo bilowday 60meeyadii qarnigii tegay. waxaana lagu tilmaamaa cudurkan inuu u qaybsamo dhowr qaybood, qayb walbana ay leedahay halis gaaraysa dhimasho. laakiin fayraskan ma ahan xanuun si toos ah ugu dhaca dadka, balse wuxuu ku dhacaa xoolaha iyo xayawaanka oo iyaguna u sii gudbiya dadka. xanuunkan ayaa ah xanuun u muuq eg hargabka. noocyo ka mid ah waxay qofka ka ba'aan isagoon dhakhtar u baahan, halka noocyo kale oo uu ka mid yahay xanuunkan hadda adduunka weerarka ku ahna ay yihiin kuwo dhimasho sababa badankoodu, waxayna u qaybsamaan si guud ilaa 7 nooc oo kala duwan. sanadkii 2002 waxay kumanaan qof oo ku kala noolaa daafaha adduunka, gaar ahaan qaaradda Aasiya, isku arkeen xanuun wata qandho, qufac qalalan, xanuun dhuunta iyo murqaha ah, ama teed la'aan iyo neefsashada oo ku adkaata. waxaana loo bixiyey xanuunkaas SARS ka hor intaan la ogaan inuu yahay nooc ka mid ah fayraska corona. xanuunkan ayaa ku dhacay ku dhowaad 8,000 oo qof oo ku kala noolaa 40 dal, wuxuuna dilay ku dhowaad 800 oo qof oo ka mid ah. sidoo kale sanadkii 2012 waxaa ka dilaacay dalka Sacuudiga xanuun la mid ah xanuunkii hore. xanuunkan oo isna lagu magac daray MERS ahaana nooc ka mid ah fayraska corona ayaa haleelay ku dhowaad 2,500 oo qof oo 850 ka mid ah ay u dhinteen xanuunkaas. waxaana hubaal ah daawade in taariikhdan madow ee uu leeyahay fayraska corona ay ka dhigtay caalamka mid argagax ka qaada xanuunkan, gaar ahaan marka aan ogaano inaan ilaa hadda la helin dawo rasmi ah oo lagu daaweeyo xanuunkan, marka laga yimaado inay dhakhaatiirtu adeegsadaan oksijiino iyo dawooyinka la dagaalama fayrasyada. haddaba kadib marka aan ogaanay waxa uu yahay fayraskan, aan u soo noqono su-aasha ah intee la eg tahay saameyntiisu, se maxay yihiin calaamadihiisu? ilaa hadda cudurkan wuxuu ku dhacay ku dhowaad 1,300 oo qof oo 40 ka mid ah ay u dhinteen. marka laga yimaado dalka China oo uu ka dilaacay, waxaa jira dalal dhaafaya 11 dal oo ay ka mid yihiin Australia, Pakistan, Faransa, Japan, Malaysia iyo Mareykanka oo lagu arkay xanuunkan. inkastoo badankoodu aysan ahayn xaalado ka badan dhowr qof, haddana arrintani uma diidin in dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Imaaraadka iyo Qatar ay ku soo rogaan gagooyinkooda diyaaradaha baaritaano la marinayo qof walba oo ka yimaada dalka China. tusaale ahaan, dalka Turkiga maalin ka hor waxaa dib loo celiyey gabar Chinese ah oo baaritaan kadib looga shakiyey inay qabto cudurkan, arrintaasi oo sababtay argagax hor leh oo ka curtay dalka Turkiga. calaamadaha uu leeyahay fayraskan ayaa ah qandho uu weheliyo qufac qalalan, hargab, caajis iyo in sidoo kale qofka ay dhibto neefsashadu. badanaana wuxuu ku dhacaa dadka difaacoodu uu hooseeyo. sidaan horey usoo sheegnay, fayraskan gaar ahaan nooca loo yaqaano SARS ayaa ah fayras ku dhaca xayawaanka, gaar ahaan geela iyo fiidmeerta, halka bisadaha qaybtooduna ay door weyn ka ciyaaraan sii faafintiisa. laakiin noocan cusub ayaa la aaminsan yahay inuu ka bilowday suuq lagu iibiyo kalluunka oo ku yaalay magaalada Wuhan ee dhacda gobolka Hubei, bartamaha dalka China.
arrinta argagaxa leh ee uu leeyahay fayraskan cusub ayaa ah inay dadku ku kala qaadayaan neefsashada iyo taabashadaba. haddii qof qaba cudurkan uu qufaco ama aad taabatid ama sidoo kale aad taabatid shay uu taabtay qof xanuunsan kadibna aad gacantaada ama meeshii aad ku taabatay aad saartid afkaaga, sankaaga ama indhahaagaba, sidaasi ayuu kugu gudbayaa fayraskan. inkastoo uu qofna qadarta ee bicelin karin, haddana waxay ku tilmaamaan dhakhaatiirtu in dadka jooga goobaha uu ku fiday cudurkan si ay isaga dhowraan ay muhiim tahay inay iska ilaaliyaan taabashada alaab aysan lahayn garanayna qofka iska leh. sidoo kale ay si joogto ah u dhaqaan gacmahooda ka hor intaysan ku taaban afkooda, sankooda ama indhahooda. maalmahan waxaad ka arki kartaa telefishinada ama wararka in dadka China jooga badankoodu ay u daboolan yihiin afku cabsi ay ka qabaan xanuunkan. sidoo kale waxaa baraha bulshada ku dhex faafay muuqaalo ku tusaya dad iyagoo taagan sikadiisa sare jooga uga dhacay xanuunkan daraadii. maalin uun ka hor ayay ahayd markii ay dowladda dalkaasi sheegtay inay 10 maalmood gudahood ku dhisayso cisbitaal cusub si ay ula tacaalaan xanuunkan galaafanaya nolosha kumanaan ka mid ah dadkeeda. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمره.